بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبض خيارة قيمها بدنا هودا نقد داونيو كل سؤال وهذا وروحي دلك يدعى عالم كنا جسوا قاعد هذين كان عوحل كانوا كلام ذكسوا قد بينه وحرمت السماء نسبة شنو لكل مجال هرجيسة الله ودلا دوس أنا حنا ورك واحد لسه عصين تونا نبي عبد الرزاق أحمد عبد الكريم تو قد بضا ورك عن يدينها إنه وجود الكرر وحكم ذا مدحوينها dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Axmed Maxamed Maxamuud Siraaye ayaa digreetay madaxweyne oo maanta ka soo saaray xafiiskiisa waxa uu ku magacaabay guddi heer qaran oo ka shaqeyn doonta ictiraafreynta qaranka dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo ay ka mid yihiin xubno miisaan ku leh dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali ee magaalada Hargeysa ayaa saaka waxa uu kulan ku dhex maray wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland maamulka macallimiinta iyo ardayda dugsigaasi kaasi oo ku saabsanaa labraantaasina daba socday mudaaharaad dhawaantan ay dhigaan ardayda dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali oo ay kaga cabanayeen lacag dheeriga wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ay ku soo rogtay ardayda dugsiyada sare ee dalka waxaana kulankan saaka ay wada qaateen maamulka macallimiinta iyo ardayda iyo waliba wasiirku waa mid amuurtaasi ku saabsan guddiga baaritaanka xansuuqi dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka geystay dawladda macaanka gaahida Maxamed Siyaad Barre ayaa maanta waxay aas qaran u sameeyeen meelada ay ka heleen deegaanka Arabsiyo sida waxaa habeenkii xalay magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay bug laga qoray wasiirka hore wasaaradda madaxtooyada ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland Xarsi Cali Xaaji Xasan kaasi oo ku saabsanaa samaraantaasina ka hadlayay xog warna laga soo wariyay wasiirka oo ka hadlaya xaaladihiisa taban iyo mid togan akhyaarta qiimaha badan ee wadada naga daawanay kuwaas waa qodobada wararkan idin hayno kooban haatan waxaad diyaar garowdaan warkaasi oo fidsan بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبض خيارة قيمها بدنا هودا نقد داونيو كل سؤال وهذا وروحي دلك يدعى عالم كنا جسوا قاعد هذين كان عوحل كانوا كلام ذكسوا قد بينه وحرمت السماء نسبة شنو لكل مجال هرجيسة الله ودلا دوس أنا حنا ورك واحد لسه عصين تونا نبي عبد الرزاق أحمد عبد الكريم تو قد بضا ورك عن يدينها إنه وجود الكرر وحكم ذا madaxweynaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Axmed Maxamed Maxamuud Siraaye waxa uu digreetay madaxweyne uu ku magacaabay guddi heer qaran oo ka howlgali doonta ictiraafreynta jamhuuriyadda Soomaaliland digreetada madaxweynuhu ku magacaabay guddiga ictiraafreynta Soomaaliland ayaa u dhignayd sidan ujeedo magacaabid guddi mudan ayaaliye marweynin sida la wada socotaan waxa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ku howlan tahay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkani dardargelinta iyo xoojinta dadaalada ku aadan sidii jamhuuriyadda Soomaaliland ictiraaf buuxa ay uga heli lahayd beesha caalamka haddaba si looga madhaliyo higsiga iyo rabitaanka runta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliland waxaan mas'uuliyiinta hoos ku qoran u magacaabay guddiga heer qaran ictiraaf raadinta jamhuuriyadda Soomaaliland guddigan madaxweynuhu digreetadiisa ku magacaabay ay waxa waajibaadkooda shaqo bartilmaameed u noqon doonta sida lagu sheegay war-saxaafadeedka diyaarinta qorshaha ictiraaf raadinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ka tala bixinta wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee roadmap waxaana xubnaha guddida ee madaxweynaha Soomaaliland war-saxaafadeedkiisa ama digreetadiisa ku magacaabay kamid ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland la taliyaha madaxweynaha arrimaha ictiraaf raadinta iyo wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya la taliyaha madaxweynaha arrimaha dibadda wakiilka wareega ee Soomaaliland mudane Rabi Axmed Maxamed wakiilka Soomaaliland ee Turkiga mudane Ali Axmed Cismaan wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliland Marwo Adnaadan Ismaaciil wasiirka hore wasaaradda arrimaha dibadda Professor Maxamed Saciid Gees wasiirka hore wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar wasiirka hore wasaaradda kalluumaysiga Cabdilaahi Jaamac Ismaan Geeljire gudoomiyaha jaamacadda Amuud Professor Salebaan Axmed Guuleed Professor Axmed Ismaaciil Samatar deanka kulliyadda sharciga jaamacadda Hargeysa mudane Maxamuud Xuseen Faarax gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Soomaaliland Dr. Axmed Cabdi Nuur Kijande gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha guurtida mudane Axmed Daahir Jirde gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uxud Injineer Faysal Cali Waraabe haddaba waxaan idinka rajaynayaa madaxweynaha Soomaaliland inaad xil weyn oo mug iyo miisaan la iska saari doontaan mas'uuliyaddan qaran ee aan idin magacaabay anigoo ku kalsoon buuri aqoontiina kartidiina hal abuurkiina ee bahibada idin siiyay ayaa lagu dhawr saxaafadeedkani waxaan farayaa buuri dhammaan wakiilada Soomaaliland u fadhiya dalalka dibadda iyo cid kasta oo ay khusayso arintani inay guddigan gacan buuxda ku siiyaan sidii ay hawshoodan u gudan lahaayeen ayaa lagu soo gunaanaday wareegtadan ama digreetadan ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee Soomaaliland ee soo saaray madaxweynaha qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraaye waxaana nuqul kamid ah oo soo
soo gaaray xafiiska warqabadka ee Somaliland Space Channel ku seexnaa afayeenka aqalka madaxtooyada ee Somaliland Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Faahiye Shamax aritaanka xasuuqi dalkan jamhuuriyadda Somaliland ay ka geysatay dawladda macaanka gaayada Maxamed Siyaad Barre ayaa maanta waxay askaran u sameeyeen meelada ay ka heleen deegaanka Arabsiyo sida faafaynta warkaasi uu noogu diyaariyay stuudiyaha magaalada Hargeysa Cabdirasaaq Cabdiraxmaan Axmed guddiga baarista xusuuqa ayaa maanta askaran u sameeyay 8 marxuum oo ku geeriyooday dagaalkii ay dawladda Siyaad Barre ay u geysatay shacabka Somaliland 8 marxuum ayaa maanta lagu aasay koonfurta magaalada Hargeysa ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha guddiga baarista xasuuqa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga xakinka talada dalka ee kulmiye agaasimaha wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland waxayna ilaahay uga baryeen in uu jannatul firdaws ka waraabiyo eheladii qaraabadii iyo asxaabtii ay ka baxeen 8 marxuum waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaynu halkan isugu nimid aaska aynu ku duugaynay dad 8 oo Somaliland darisa oo gacan ka xaq darani ku dishay 88 magaalada Arabsiyo 88 magaalada Arabsiyo oo laga soo qofay halkii lagu duugay markii hore oo si ixtiraam daran loogu guray ka bacdina imaka hadii aan la yiraahdo kolkii ay eegeen dhakhtaradii baarayay dadku sida u dhinteen kolkii ay ka dhameysteen ayaa imaka hadii aan la yiraahdo sidii ixtiraamka lahayd ee islaamiga ahayd loogu aasayaa xabaalaha qaranka halka looga sameeyay ee ku taala masallaha bariga ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo dadka muslimiinta marxuumiinta maanta aynu halkan ku aasayno gacanta ka xaq daran ay dishay iyagoo wax dambiyaha ay geystayaan jirin waxaan marka hore ka tacsiyadeynayaa ehelkii qaraabadii ay ka shahiideen marxuumiinta imika aynu halkan ku aasayno ayaan darana ay sii tahay qoys qura oo halkaa maxaan ku dhahdaa lagu xasuuqay 84kii waxa uun ay arrintan ina tusaysaayo xabaalaha kale imika dhinacan kale ka xigaana ay yihiin xabaala wadareedyo iyaga oo kale ah oo xilligaa dowladdii dalka maamulaysa ee kala ditaliska ah ay dadka si naxariis la'aan ay u xasuuqdeen meelo badan oo kalena waa ay ka buuxaan dadka marxuumiinta ah gacanta ka xaq daran la dishay inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala samiriye ma ka sii runtii waa laba geeriyood oo maalintii hore geeri bay ahayd xilligii la xasuuqay maantana geeridii waa dib ugu cusboonaatay marka runtii waxaynu ilaahay uga rajaynaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga meel yeelo oo jannada ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka waraabiyo sida ay soo sheegeen labada mujaahid waxaad arkaysaa dee midhihii oo wixii tacadigii laynagu sameeyey ee ina gaadhay laakiin maanta alxamdulilah qarankeeni baa inoo dhisan midhihiina waan ka haysanaa laakiin xanaftii innaga iyo soomaaliyana kala kaxaysay bay kow ka yihiin maxkamadda ilaahayna way ku argoosan doonaanoo rasuulkeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii la dilay ee gacanta ka xaq darani dishay qiyaamaha wuxuu imanayaa isagoo halkaa kalarka laalaadinaya kii dilay waa Cabdirasaaq Axmed Cabdiraxmaan telefishinka madaxa bannaan ee Somaliland Space Channel magaalada Hargeysa dugsiga sare ee Maxamed Axmed Cali ee magaalada Hargeysa ayaa saaka waxa uu kulan ku dhex maray wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland maamulka macallimiinta iyo ardayda dugsigaasi kaasi oo ku saabsanaa isla markaasina daba socday mudaaharaad dhawaantan ay dhigaan ardayda dugsiga sare ee Maxamed Axmed Cali oo ay kaga cabanayeen lacag dheeriyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland ay ku soo rogtay ardayda dugsiyada sare ee dalka waxaana kulankan saaka ay wada qaateen maamulka macallimiinta iyo ardayda iyo wasiirku waa mid amuurtaasi ku saabsan
barashada iyo tacliinta sare ee Somaliland ayaa saaka kulan la qaatay maamulka macallimiinta iyo ardayda wax ka dhigata dugsiga sare ee Maxamed Axmed Cali ee magaalada Hargeysa waxaana kulankan wasiirka iyo maamulka dugsigaasi ay wada qaateen uu salka ku hayay kadib markii toddobaadkii dhawaa ay mudaharaad dhigan ardayda dugsiga sare ee Maxamed Axmed Cali kaasi oo ay kaga cabanayeen lacag lagu kordhiyay waliba qaar ka mid ah macallimiinta dugsigaasi oo aan gunaysnayn oo dugsiga laga dhimay kulankan ay saaka isugu yimaadeen wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland iyo sidoo kale maamulka macallimiinta iyo ardayda dugsigaasi Maxamed Axmed Cali ee magaalada Hargeysa oo ka dhacay xarunta dugsigaasi ayaa ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsigaasi waxaana wasiirka ay uga mahadnaqeen qoshadiisa ama kulankan uu saaka la qaatay sidoo kale waxay hoosta ka xariiqeen inay ka cabanayaan isla markaasina mudaharaadkii ay dhigeen uu salka ku hayay lacag dheeri ah oo wasaaradda waxbarashadu ay ku kordhisay ardayda dugsigaasi iyo guud ahaanba ardayda dugsiyada sare ee Somaliland waxa sidoo kalena ay sheegeen inay arday ahaan diidaneen wixii sharciga isla markaasina ay ka soo horjeedaan wixii aan qabanin waxaana wasiirka ay baaq dheer ugu sheegeen inaanay marnaba u baahnayn in laga bedelo maamulaha dugsigaasi oo ay ku sifeeyeen inuu yahay halii qaran oo dhidibada u taagay dugsigaasi tan iyo intii maamulka ka ahaa isla markaasina soo saaray arday ka dhisan dhinaca aqoonta asluubta iyo tarbiyadaba waxaana wasiirka ay u soo jeediyeen inuu faraha ka laabto inuu maamulkaasi ka bedelo iskuulka isla markaasina macallimiinta ka tagtayna dib loogu soo celiyo sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Maxamed Axmed Cali Axmed Balayax waxaana wasiirka uga mahad celiyay kulankan oo la qaatay maamulaha dugsigaasi waxa hoosta ka xariiqay isla markaasina iska fogeeyeen aanu haba yaraatee sida ardaydu ay ka markhaati kaceen aanu wax luga ku lahayn mudaharaadkii dhowaantan ka dhacay ardayda dugsigiisa hase yeeshee uu mar walba diyaar u yahay sidii uu wanaajin lahaa wada shaqaynta ka dhaxaysa dugsiga uu maamulka ka yahay wasaaradda waxbarashada waxaana intii uu hadalka ku jiray maamulaha dugsigaasi uu hoosta ka calaamadiyey hadal dhowaan ka soo baxay wasiirka wasaaradda waxbarashada Somaliland oo ahaa inaanay wasaaraddu u dulqaadan doonin maamulaha haysta in ka badan 25 sano oo markaasi uu la jeediyay maamulaha dugsigaasi Axmed Cali Balayax ninbaanka laga sheegay Maxamed Axmed Cali ya dhibaataduna waxay ka dhacaysaa kun baan ii sheegay waalid iyo arday baad fadhidaan 25 sano ninka joogay meel isaga iskuul kala mise dawladda mise dawladda mise iskuulkii yaale isaga yeeshay kun baan isku sheegay xaqiiqatan u tagayna ma suurooba sabtaas wax suuroobaya ma kurku hadduu naga go-ayo ma qaadan karno inuu 25 sano intuu dhex fadhiya haddana carruurta lagu soo diro maalin walba hase yeeshee waxa uu maamuluhu madasha uu wasiirku fadhiyay ka sheegay in uu wasiirku xilligii ahaa xogayaha golaha guurtida Somaliland isagu muddo ku siman 22 sano u soo ahaa xogayaha taasina aanay dambi ahayn isla markaasina qofku muddo dheer inuu joogo aanay dambi ahayn hase ahaatee ay dambi tahay buu yiri inaan waxba ka qaban halka uu joogo hadaladiisina waxaa ka mid ahaa kan saaka ay wada qaateen wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Somaliland iyo maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare ee Maxamed Axmed Cali ayaa waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Somaliland Cabdilaahi Ibrahim Abane waxaana uu ka hadlay lacagaha ay ku soo kordhiyeen ardayda dugsiyada sare ee Somaliland iyo sababaha ay xilligan u soo kordhiyeen waxaana uu yiri maahan lacagta ay qaadan mayso wasaaradda waxbarashadu qaadan mayso maamulihiina ay nihaya isagaa jeega idin jaraya isagaa maamulaya laakiin waxaan ku soo kordhiyay wax weeye halaga nidaamiyo haddii si aan tuugta waxba idin talinaysee maragooda qaataan ardayda waxaan ka codsanaynaa inay hore u keenaan si kastaba haatee kulankan saaka wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Somaliland uu la qaatay maamulka macallimiinta iyo ardayda dugsiga sare ee Maxamed Axmed Cali ee magaalada Hargeysa ayaa gunaanadkii waxa uu ku soo dhamaaday jawi degan iyo mid farxadeed.
iyadoo wasiirkuna waardida horteeda maamulaha dugsigaasi uga sheegay in intuu doono haysan karo maamulka dugsigaasi haasahaatee loo baahan yahay inuu ku hago dariiqa saxda islamaraantaasina ka dheeraado wax kastoo wax u dhimay wada xidhiirka ka dhexeeya dugsigiisa iyo wasaaradda waxbarashada. Cabdirasaaq Axmed Koronto, Somaliland Space Channel, Hargeysa. deegaanka iyo horumarinta reemiyiga ee Somaliland ayaa waxay olole ballaaran oo ay ku codegtirayso islamaraantaasina ay ku soo qabanayso dhuxulaysatada qaar ka mid ah deegaanada hoostaga xarunta gobolka Togdheer ee Burco. faafahinta warkaasi waxaa magaalada Burco nooga soo diray wariyaha halkaasi nooga soo warama Cabdirasaaq Cabdilaahi Aadan Koronto. deegaanka iyo horumarinta reemiyiga Somaliland ee gobolka Togdheer ka shaqeynaysa ciidanka booliska ayaa howlgal xoogan ka filisay 12 tuulo ku yaala waqooyi bare gobolka Togdheer ayaa waxay ku soo qabteen 12 ruux oo dhuxulaysata ah iyo agabka ay isticmaalayeen shirista dhirta qoyan ee deegaanadaasi. sidoo kalena waxay ciidanka booliska ee gobolka Togdheer iyo wasaaraddu soo baabiyeen kaamo lagu shiri jiray dhuxusha. maamulaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Togdheer Cabdilaahi ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalka ay sameeyeen wasaaraddu deegaanku iyo wasaaradii iyo deegaankii intaas ba isla jaan qaadaan wax qabad wanaagsan la muujiyo intaas oo looga sii dhawaado weeyaan inta qalab halka taala ama alaab halka taala ayday ku jirto dhirbay goynaysa wiiga ama 9 cashay maanta maraysa hawlgalku maraya 9 ka casho inta geeda badbaaday ee dabka badbaaday ama goyn ka badbaaday waa malaayiin geed dhulkan ilaahay idinku beeray idinka ku nool dadkiiniba ku nool caruurtiiniba ku nool xoolihiiniba ku nool waxa gubaysan waa naftiin. gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabo iyo taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer ayaa baaq u diray cid kasta oo ku hawlan shirista dhirta isla markaana ballan qaaday in cidii lagu qabto la kulmi doonto cawaaqib adag. iyagoo arrimahaas ka hadlay waxay yiraahdeen xoolaha ku nool lafdhabarteenu waa xoolo runtii maanta waxaad moodaa xoolihiina waxba loo ogolayn oo geedkii qoyraa ee cunayeen caleentii lagu haysto. waxaan leeyahay odayaasha deegaanka runtii hawshaa sida lixaad kale uga shaqeeyey sida hagarlaanta ula shaqeeyey ciidanka booliska ee aan ku xoojinay iyo wasaaradda deegaanka oo imka madaxdeediiba ay fadhido meesha runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida hagarlaanta ay u shaqeeyeen. geesta kalena qaar ka mid ah odayaasha deegaankaasi ayaa soo dhaweeyay howlgalkan iyo wasaaraddu iyo ciidanka booliska ay bilaabeen. dhulka inta cunte waxa nagu wallaahiya oo nagu bilaahiya oo nagu tallaahiya gaarigii soonaha iyaga soo gala. Cabdirasaaq Cabdilaahi Sheekh Aadan Cabdi Koronto, telefishinka madaxa bannaan ee Somaliland Space Channel gudaha magaalada Burco. akhriska ee halkaraan ee magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa waxay u dabaaldegeen sanad guuradii 7aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay. markalena faafahinta warkaasi magaalada Burco waxaa nooga soo diray wariyaha halkaasi nooga soo warama Cabdirasaaq Sheekh Cabdilaahi Aadan Koronto. munaasabad ballaaran oo xilalka kala wareegayeen hogaanka cusub ee naadiga akhriska iyo qoraalka halkaraan iyo hogaankii hore isla markaana lagu dabaaldegayay sanad guuradii 7aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay naadigaasi ayay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta gobolka ka degmada xildhibaano dhalinyaro ka kala qaar ka mid ah gobolada Somaliland iyo hogaanka naadiga halkaraan waxaana halkaas lagu soo bandhigay warbixino ku saabsan taariikhda naadigaasi iyadoo ay hogaanka xilka isku wareejiyay halkaasi ka soo jeediyeen kelmado ku saabsan marxaladii naadigu soo maray iyo heerarkii uu maray fikirkii lagu aasaas naadiyada akhriska ee dalka.
xubno dhalinyaro ah oo ka socotay qaar ka mid ah gobolada dalka hal abuuro gudoomiyaasha qaar ka mid ah ururada gobolka ayaa si weyn ugu bogaadiyay naadiga akhriska iyo qoraalka Alkaraan kuna tilmaamay meel tusaale fiican u ah dhalinyarada dalka barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabo maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad xildhibaan Cabdullaahi Xasan Nuur oo ka tirsan golaha deegaanka ayaa iyaguna si weyn u amaanay naadiga waxayna si gaar ah barasaabka gobolka Togdheer u tilmaamay inuu ku biiray naadiga Alkaraan kooxda Ayatin Drama ayaa riwaayad qosol badneed ku soo bandhigay ahmiyadda qoraalka iyo akhriska ku soo bandhigay halkaasi gabagabadii waxa halkaasi barasaabka gobolka Togdheer si rasmi ah xilku kala wareejiyay gudoomiyaha hore naadigaasi Bashiir Salmaan Aadan Raacdeeye iyo gudoomiyaha cusub Nasra Kayse iyagoo sharafna lagu maamusay kooxda Ayatin Drama iyo golay hore boardka naadigaasi ee Alkaraan Cabdirasaaq Cabdullaahi Shaqan Absa Koronto telefishinka madaxa bannaan Soomaaliland Special gudaha magaalada Burco waxa habeenkii xalay magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buug laga qoray wasiirka hore wasaaradda madaxtooyada ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Xarsi Cali Xaaji Xasan kaasi oo ku saabsanaa zamraanta taasina ka hadlayay xogwarna laga soo wariyay wasiirka oo ka hadlaya xaaladihiisa 10 iyo mid togan sida baabaanta warkaasi uu loogu diyaariyay wariyaha Cabdirasaaq Axmed Cabdiraxmaan waxaa habeenkii xalay ahaa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buug la magac baxay xog ururin 10 iyo togan oo laga yiri Xilsi Cali Xasan wasiirka hore ee madaxtooyada Soomaaliland waxaana ka soo qayb galiyay mas'uuliyiin iyo dhalinyaro tiro badan waxa ugu horreyn halkaasi ka hadlay qoraaga buugga Cabdiqani Xaamil Cawaale waxaanu ka sheekeeyay caqabadihii kala kulmay qorista buugani waxaana uu yiri maalin walba sababta uu hayay buugga waxa ka jira koob maalin walba ka jira ariga ma jiro oo hay'adda Soomaaliya ee waxa uu wada ayaa nooga iyo kooxda ugu socda ariga waqti deedna anagoo wadi cabirayna nin anagoo wadi foto ka qaadayo ayuu ugu dhaayay waa maxay loo sawiraysa deedna wuxuu isagay wuxuu kiimsi hayay inay meesha oo xilsiga ismoodi marka ana xilsi waa الشغل ده كان على فترة أنا واحد من الناس ممكن يغير ما يرتاح. ده واحد ما هو يغير ما يسكت يوم ثلاثة يوم هذا دور ما يفهمنا. دور واحد تتبع هذا الكتاب ولا هذا الشيء شو هذا وضيع دور ولا سوى هذا أي يوم هذه مثلا ما كل كذا يوم كسبوا ونكها هذا المحسي. لأن كذا يقولون هاي حزب اسمه دكتور حزب محوها الدراسة ما كسر اليوم ما كسر اليوم كذا ساي أنا أطرش هاي يقولون زين هاي يعني قف الله يجزيه كم خمسة الله هذا سنتو قف وروح على هاي محوها هاي يقولون سنة محققة من وقتها ودي أبي وقتها وفهمتها لكن هذا القف كي تعمل إسكان برئيسته أنا أسكع بتوع الناس بعض الناس كلها هذا الشيء مثلا في الديارية كمان مركز وضعي بعدين وضعها هذا تسكع حدوها وضعها يسمح لك من شيء مركز سيمون اللي ما يسكع وضعنا أيوة هذا يسكع بتوع وحكي كلام معي kiista kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay
cabdikariin axmed mooge wasiir ku-xigeenka hore wasaaradda qorsheynta qaranka iyo gudoomiyaha fanaaniinta xidigaha geeska abwaan xasan dhuxul laabsaalax waxaanay ka sheekeeyeen qiimaha uu buuggani ku fadhiyo iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay yidhaahdeen sida tan dadkiina waa qabuuraamaan qof joogay intiisa wanaagsan sheegaan intiisa dhaliishana ay tilmaamaan way ku adag tahay qofku waxa uu dhintay tartankii noloshu ka baxaya taasaan keenaysaa maanta filaya horti waan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galo munaasabadan dadka wanaagsan ee dhaqaale ku jira waxaa ku jira dadka runtaan guuraha dadka qowlka leh imika intiina halkaa joogtaa aragtiyo kala duwan baad ka haysataa golaha wasiiradu ka mid ahaa waxaan filayaa in kartidiisa iyo garashadiisa iyo dowrkiisa iyo hadalkiisu ay keeneen inuu ka saameyn doonaado noloshaa saameyn leh qowlka wanaagsan markuu sidaa yahay qowlkaagu wuxuu saameyn ku yeelanayaa qofnimadaada imisaa xil laga qaado gabagabadii waxaa hadalka soo gunaanaday wasiirkii hore wasaaradda madaxtooyada somalilan ciise cali xaaji xasan waxaan uga mahad celiyey qoraaga buuggani in uu ku kalsoon yahay kanana soo qayb galo wixii laga yidhaahdo isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi inay quruurku gelisay ee kibir maahe shidaal bay ku tahayo wanaag inaad ku soconaysay baad soogaatahayo horaad ku socotaa wixii qaldanna haddaanu qofku ahayn qof aan dee diyaarayn qaladkiisa loo sheego wixii qaldanina waa nasteexo haddaad waxaad guul daraysatay maalintaadi weydo cid qaladkaaga kuu sheegtay ku tiraahda waad qaldantahay joog nin madaxna inkastoo laga yaabo inay dadku jecel yihiin dadka u camleeya ee u haaleeya laakiinse dantiisu waxay ugu jirtaa ninka runta u sheega ninka runta u sheega ayay runtii dantu ugu jirtaa ee ninka u camleeya uguma jirto marka aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay cabdiqani iyo inta kale ee runtii haldoorka ah ee bulshaduba wixii ay ugu arkaan inay soo tiriyaan aad baan ugu qanacsanahay cabdirasaaq axmed abdiraxmaan telefishinka madaxa bannaan ee somaliland space channel magaalada hargeysa taageerayaal miisaanle ayaa habeenkii xalay ah kusoo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani ee magaalada boorame sida faahfaahinta warkaasi uu nooga soo diray xarunta gobolka awdal ee boorame warayahayga halkaasi nooga soo warama jaamac xuseen jaamac dudde si heer sare ah loo soo agaasimay ujeedkeeguna ahaa 10 mas-uul oo ka mid ahaa xisbiga muxaafidka ee kulmihii ka soo digarogtay loogu qabtay maanta teeraysay magaaladani boorama kuwaas oo ku soo biirayay xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa goobjoog ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani gudoomiye ku-xigeenka koowaad musharaxiinta jagada madaxweyne xigeen iyo waliba mas-uuliyiinta kala duwan ee xisbiga mucaaradka ee wadani dhalinyaro iyo waxgarad mas-uuliyiin kala duwan ganacsato haween iyo bulshaweyntii ka soo qayb gashay munaasabada soo dhaweynta 10 xubnood oo mid ka mid ay ahayd haweenay intooda badanna ahaa kuwo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadii iskaga kala dambeeyay xukuumad dalka kala hogaaminaya Daahir Riyaale Kaahin iyo xukuumadda haatan ay ka soo digarogteen ee Axmed Silaanyo inta u badan mas'uuliyiintani waxay ahaayeen rugcadaayo horey loogu yaqaanay xisbigii lagu magac daray inuu ahaa xisbigii talaabada qabooba ee burburay ee lagu magacaabi jiray udub ugu horeyn iyagu waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo digarogtay xisbiga muxaafidka ee kulmiye oo hormuud ka ah wasiirkii labada xil iskaga soo kala qabtay wasaaradihii dib u dejinta iyo warshadaha barasaabkii hore ee gobolka Awdal iyo barasaab xigeenkii hore ee gobolka Salal ugu horeyna isagu waxa hadalka qaatay barasaab ku xigeenkii hore ee gobolka Salal Cali Alaala Rayaale iyo barasaabkii hore ee gobolkani Awdal Axmed Xadi Sidci inuu dalku isbedel u baahan yahay ayaanu aniga iyo asxaabteedu isla qaadanay wahalka ugu habboon ee wax laga sixi karaa inay tahay wadani inaanu iyadoon cidnana khasbin cidna nagu soo abaabulin cidna noo qorshayn aanu annagu aragtidayada markaanu eegnay in maanta dalkii ka laalaado meel halisa oo maanta ummaddii Somaliland masiirkeedii uu mugdi galay una u jiro in la kala yaaco runtii marka la eego maamulka ay nagu maamuleen xisbigii kulmiye inuu meel inaga ridayo waxaanu garanay oo isla garanay aqoonyahanada intaa ka fadhiday ka badanba in maanta loo baahan yahay wadankii in la badbaadiyo
ummadii Soomaaliland dhankiisa kalena waxa qaatay siyaasi Mandela iyo waliba gudoomiyihii hore ee degmada Baki Idris Farah kulmiye wuxuu bini'aadankii Ilaahay karaameeyay ka dhigay kaan intuu xoqo marba mid tuuro sidoo kale inuu tuuray sidoo marba mid tuurayay ugu dambayntii kolkay dadkii dhamaadeen musabbix buu soo tuuray dadku iyagoo qaawan ayay dhashaan waxa saaqa ma wataan markaa waxay wataan laba shay midabka iyo rabitaanka labadii buu kulmiye damcay inuu dadkii ka xoqo waxaana dhacayn annagu haddaanu nahay siyaasiyiinta ku soo biirtay xisbiga wadani waxaanu ka rabnaa inaanu ka iibino gobollada kale Somaliland annaga gobolkan oo qura حق مليون نكيد. يوم تصير وراك يجي يقول لي شاعر عز الله كان صوته كم سبيكي ضرورتي وحوي ضلك يضلك ولا لحجارك قضايا معي. هذا هو هذا واحد هذا يجار وقفور قبل السياسة ضلك ويا ضلك يضلين لا يدك كسر. isagu waxa hadalkaasi uu soo gabagabeeyay kuna hadlaya afka mas'uuliyiintaas wasiirka hore ee wasaaradda warshadaha Soomaaliland Cabdirasaaq Cali Cismaan waxa uu ka dhawaajiyay اسمي كلية تذكار الواحد اسمي كلية تلسل وعنقرني بكتب ولا الشعب قصر عينا درانية صواحا صعب ومشحرد الدرمان تربدا كذب waxa goobtaas ka hadlay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxa uu ka dhawaajiyay walaalkan marka hore waxaan jecelahay in anigu ka wakiilo dhamaan madaxda mas'uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga wadani aan gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhaweeyo siyaasiyiinta miisaan kale ee horteeda fadhiya ee hareerahayga jooga waxaan leenahay ku soo dhawaada xisbiga wadani waxaa kaloo tusaya in shacbigaasi ay ka muuqatay siday golaha uga muuqato in dhammaantood ay doonayeen isbeddel toobiya la beddelaya yaa la beddelayaa yaa la beddelayaa yaa wax beddelaya isku soo wada duub oo jawiga munaasabadan ayaa ahayd mid aad ka dheehanayso farxad iyo damaashaad istaba joog ah walow dhagahaagu ku soo dhacayeen heestaas taanta u ah xisbiga mucaaradka ee wadani una dhignayd sida tan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Niborama waxay noqotay goob marba marka ka dambaysa munaasabado kala duwan iyo dhawaqa xisbiga mucaaradka ee wadani uu noqday mid dhagaha iyo indhaha bulshada reer awdal ku soo badanaya وجامع حسين جامع ضد Somaliland Space Channel رئيس هوتيل magaalada Boorama akhyaarta qiimaha qadarinta xushmada iyo xishoodka naga mudan hawada naga daawanay guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayna warar dalkii dacalada caalamka naga soo gaaray habeenkan caawa tan iyo warar kordhigood isla baahinta caawa saacadaha nagu soo foolay mar kale intaan ku kulmino aniga ee bahda laga qayb qaatay soo jeedinta diyaarinta tabinta iyo dubitaanka warku waxaan ku dhaafaynaa isma dhaafnay assalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh diyaar garoobo qaybaha kale ee baahinta